habeen aan hore loo arag ayuu u ahaa maamulka gumaystaha cirkoodu wuxuu u muuqday mid kala didilaacaya qaylo digniin ah oo kala gogo'aysa ayaa hawada is haysatay ilbiriqyo kadib waxaa daba socday iftiinka gantaal ballistic ah oo ku soo degayay xawaare ka badan 5 jeer xawaaraha codka ma ahayn weerar ku meel gaar ah balse waxa uu ahaa mawjadii sagaalaad ee howlgalka ballanqaadka afraad ee Iran waxa ay ku tuurtay gantaalkeeda culus ee Sijiil 2 mid ka mid ah tijaabooyinkeedii ugu khatarsanaa ee taariikhdeeda military gantaal madaxyo badan leh ayaa dhex maray lakabida difaaca cirka ee isku xiriirsan laga bilaabo David Sling ilaa Thad sidii meel bannaan oo aan wax caqabad ah jirin ayuu u dhex qaaday Israa'iil waxa gilgilay qaraxyo lama filaan ah gudaha qolalka howlgalka su'aashu ma ahayn Sijiil ma la qaban karaa ee waxa ay noqotay imise gantaal ayaa gaari doona bartilmaameedka mawjadaha xiga tabinteena Tafaftir Media waxaan ku iftiiminaynaa sida Iran ay u wareejisay miisaanka awoodda laga bilaabo garoomada diyaaradaha ilaa rugaha ridista gantaalada xawaaraha sare leh soo dhawaada markale kulan wanaagsan haddii ay tahay markaagii kugu horeysay aad daawanayso Tafaftir Media waxaan ka rajaynayaa inaad ka mid noqoto bahda nagu xiran aan toos u abaarno tabinteena burburka ka dhacay Beit Shams ma ahayn oo kaliya khasaare muuqda balse waxa uu ahaa fariin cad oo muujinaysa nuglaanta nidaamka difaaca maamulka gumaystaha tirooyinka warbaahintu faafinayso ma muujinayaan xaqiiqda dhabta ah xaqiiqadu waxay tahay in Sijiil 2 uusan la kulmin difaac adag balse uu la kulmay farqi farsamo markii cirku u muuqday mid kala gogo'aya raadaaraduna aysan arkaynin bartilmaameedkiisa cad Sijiil 2 wuxuu muujiyay taagdarnaanta difaaca awoodda badnaa ee uu sheegan jiray maamulka gumaystaha dhererkiisu waa ku dhawaad 17.5 mitir dhexroorkiisuna waa 1.25 mitir wuxuu ku shaqeeyaa laba marxaladood oo shidaal adag ah taas oo u ogolaanaysa inuu gaaro xawaare sare masaafada u dhaxaysa goobta laga ridayo ee gudaha Iran iyo bartilmaameedkiisa Israa'iil waxa lagu gooyaa daqiiqado yar gudahood nidaamyada difaacuna waxay galeen jahawareer farsamo ma aha oo kaliya xawaaraha balse waa nidaamka hagista casriga ah Sijiil 2 kuma tirsana wadda ballistic soo jireen ah oo sahlan in la saadaaliyo waxa uu adeegsadaa oo ku salaysan ka hortagga faragelinta elektrooniga iyo qalab cabir oo saxan nidaamkani wuxuu u ogolaanayaa inuu sixitaan ku sameeyo jihadiisa marxaladda dhexe iyo tan ugu dambaysa ee duulimaadkiisa inta uu ku jiro wajiga ugu dambeeya gantaalku wuxuu maareyn karaa si uu uga baxsado raadaarada iyo gantaalada ka hortagaya sida Thad iyo David Sling marka uu bedelo xagasha weerarka ilbiriqsiyada ugu dambeeya gantaalada ka hortagga ah waxay ku dhacayaan hawada maran halka Sijiil 2 uu ku dhacayo bartilmaameedkiisa qiyaas aan ka badnayn 50 mitir masaafo dhan marka la eego madaxa qaraxa waxa la sheegayaa inuu yahay naqshad tamar ku salaysan oo xoogga ku ururisa goobta uu ku dhaco taasi waxay sababtaa mawjado cadaadis oo burburiya dhismayaasha gudaha sidaas ayay dhismayaal ku yaala Beit Shams u burbureen sidii ay la kulmeen dhulgariir xooggan isku darka xawaare sare hagiska hortag faragelin leh iyo awood burburin sare leh ayaa ka dhigay Sijiil 2 hub istaraatiiji ah oo bedelaya miisaanka awoodda gobolka arrintani waxay muujinaysaa in ku tiirsanaanta difaaca gantaalada oo kaliya aysan damaanad qaadi karin difaac buuxa iyada oo furaysa xilli cusub oo tartan istaraatiiji ah uu soconayo maxaa adkeynaya in si degdeg ah loo ogaado dhaqdhaqaaqa gantaalka qayb ka mid ah jawaabtu waxay ku jirtaa halka laga ridayo ee guurguuraysa maadaama uu ku shaqeeyo shidaal culus Sijiil 2 uma baahna waqti dheer oo diyaarin ah daqiiqada gudahood ayaa lagu diyaarin karaa lana ridi karaa taas oo siinaysa istaraatiijiyadda ku dhufo oo ka dhaqaaq meelaha laga ridayo oo ah kuwa dahsoon gantaalkani waxa uu si degdeg ah uga kacayaa ka hor inta aan la helin xog sugan oo lagu fulin karo weerarka hortaga dhanka kale qabashada gantaal noocan ah waxay u baahan tahay in la rido ugu yaraan 2 gantaal oo ka hortaga si loo kordhiyo fursadda guusha taasi waxay keenaysaa kharash aad u sareeya marka la barbar dhigo qiimaha soo saarista gantaalka laftiisa marka mawjado isdaba jooga la rido hadafka ma aha oo kaliya bartilmaameed gaar ah balse waa in la daaliyo difaaca la yareeyo kaydka gantaalada ka hortagga lana abuuro culays dhaqaale iyo farsamo si ugu dambeyn maamulka gumaystuhu u fashilmo masaafo gaaraysa in ka badan 2,000 kilomitir ayaa u ogolaanaysa in bartilmaameedyo kala duwan oo istaraatiiji ah ay galaan halis toosa xaaladan qaab ciyaareedkii difaac dhaqameedka wuu isbedelayaa iyadoo gantaal kaliya uu awood u leeyahay inuu saameyn weyn ku yeesho goob muhiima waxa dhacay ma ahayn oo kaliya weerar balse waxa uu ahaa isbedel ku yimid xisaabta istaraatiijiga ah ee gobolka haddaba su'aashu waa ma sii kordhi doontaa doorka gantaalada ballistiga ah maalmaha soo socda mise waxaa jiri doona xeelado cusub oo lagu wajaho aragtidaada nagula wadaag qaybta faalooyinka ee commenteska hana iloobin inaad ku soo biirto kanaalkeena Tafaftir Media intaanu dib u kulmayno waa Abubakar Maxamed oo idin leh nabad iyo warsan habeen aan hore loo arag ayuu u ahaa maamulka gumaystaha
cirkoodu wuxuu u muuqday mid kala didilaacaya qaylo digniin ah oo kala gogo'aysa ayaa hawada is haysatay ilbiriqyo kadib waxaa daba socday iftiinka gantaal ballistic ah oo ku soo degayay xawaare ka badan 5 jeer xawaaraha codka ma ahayn weerar ku meel gaar ah balse waxa uu ahaa mawjadii sagaalaad ee howlgalka ballanqaadka afraad ee Iran waxa ay ku tuurtay gantaalkeeda culus ee Sijiil 2 mid ka mid ah tijaabooyinkeedii ugu khatarsanaa ee taariikhdeeda military gantaal madaxyo badan leh ayaa dhex maray lakabida difaaca cirka ee isku xiriirsan laga bilaabo David Sling ilaa Thad sidii meel bannaan oo aan wax caqabad ah jirin ayuu dhex qaaday Israa'iil waxa gilgilay qaraxyo lama filaan ah gudaha qolalka howlgalka su'aashu ma ahayn Sijiil ma la qaban karaa ee waxa ay noqotay imise gantaal ayaa gaari doona bartilmaameedka mawjadaha xiga tabinteenan Tafaftir Media waxaan ku iftiiminaynaa sida Iran ay u wareejisay miisaanka awoodda laga bilaabo garoomada diyaaradaha ilaa rugaha ridista gantaalada xawaaraha sare leh soo dhawaada markale kulan wanaagsan haddii ay tahay markaagii kugu horeysay aad daawanayso Tafaftir Media waxaan ka rajaynayaa inaad ka mid noqoto bahdan nagu xiran aan toos u abaarno tabinteena burburka ka dhacay Beit Shams ma ahayn oo kaliya khasaare muuqda balse waxa uu ahaa fariin cad oo muujinaysa nuglaanta nidaamka difaaca maamulka gumeystaha tirooyinka warbaahintu faafinayso ma muujinayaan xaqiiqda dhabta ah xaqiiqadu waxay tahay in Sijiil 2 uusan la kulmin difaac adag balse uu la kulmay farqi farsamo markii cirku u muuqday mid kala gogo'aya raadaaraduna aysan arkaynin bartilmaameedkiisa cad Sijiil 2 wuxuu muujiyay taagdarnaanta difaaca awoodda badnaa ee uu sheegan jiray maamulka gumeystaha dhererkiisu waa ku dhawaad 17.5 mitir dhexroorkiisuna waa 1.25 mitir wuxuu ku shaqeeyaa laba marxaladood oo shidaal adag ah taas oo u ogolaanaysa inuu gaaro xawaare sare masaafada u dhaxaysa goobta laga ridayo ee gudaha Iran iyo bartilmaameedkiisa Israa'iil waxa lagu gooyaa daqiiqado yar gudahood nidaamyada difaacuna waxay galeen jahawareer farsamo ma aha oo kaliya xawaaraha balse waa nidaamka hagista casriga ah Sijiil 2 kuma tirsana wadda ballistic soo jireen ah oo sahlan in la saadaaliyo waxa uu adeegsadaa oo ku salaysan ka hortagga faragelinta elektrooniga iyo qalab cabir oo saxan nidaamkani wuxuu u ogolaanayaa inuu sixitaan ku sameeyo jihadiisa marxaladda dhexe iyo tan ugu dambaysa ee duulimaadkiisa inta uu ku jiro wajiga ugu dambeeya gantaalku wuxuu maareyn karaa si uu uga baxsado raadaarada iyo gantaalada ka hortagaya sida Thad iyo David Sling marka uu bedelo xagasha weerarka ilbiriqsiyada ugu dambeeya gantaalada ka hortagga ah waxay ku dhacayaan hawada maran halka Sijiil 2 uu ku dhacayo bartilmaameedkiisa qiyaas aan ka badnayn 50 mitir masaafo dhan marka la eego madaxa qaraxa waxa la sheegayaa inuu yahay naqshad tamar ku salaysan oo xoogga ku ururisa goobta uu ku dhaco taasi waxay sababtaa mawjado cadaadis oo burburiya dhismayaasha gudaha sidaas ayay dhismayaal ku yaala Beit Shams u burbureen sidii ay la kulmeen dhulgariir xoogan isku darka xawaare sare hagiska hortag faragelin leh iyo awood burburin sare leh ayaa ka dhigay Sijiil 2 hub istaraatiiji ah oo bedelaya miisaanka awoodda gobolka arrintani waxay muujinaysaa in ku tiirsanaanta difaaca gantaalada oo kaliya aysan damaanad qaadi karin difaac buuxa iyada oo furaysa xilli cusub oo tartan istaraatiiji ah uu soconayo maxaa adkeynaya in si degdeg ah loo ogaado dhaqdhaqaaqa gantaalka qayb ka mid ah jawaabtu waxay ku jirtaa halka laga ridayo ee guurguuraysa maadaama uu ku shaqeeyo shidaal culus Sijiil 2 uma baahna waqti dheer oo diyaarin ah daqiiqada gudahood ayaa lagu diyaarin karaa lana ridi karaa taas oo siinaysa istaraatiijiyadda ku dhufo oo ka dhaqaaq meelaha laga ridayo oo ah kuwa dahsoon gantaalkani waxa uu si degdeg ah uga kacayaa ka hor inta aan la helin xog sugan oo lagu fulin karo weerarka hortaga dhanka kale qabashada gantaal noocana waxay u baahan tahay in la rido ugu yaraan 2 gantaal oo ka hortaga si loo kordhiyo fursadda guusha taasi waxay keenaysaa kharash aad u sareeya marka la barbar dhigo qiimaha soo saarista gantaalka laftiisa marka mawjado isdaba jooga la rido hadafka ma aha oo kaliya bartilmaameed gaar ah balse waa in la daaliyo difaaca la yareeyo kaydka gantaalada ka hortaga lana abuuro culays dhaqaale iyo farsamo si ugu dambeyn maamulka gumeystuhu u fashilmo masaafo gaaraysa in ka badan 2,000 kilomitir ayaa u ogolaanaysa in bartilmaameedyo kala duwan oo istaraatiiji ah ay galaan halis toosa xaaladan qaab ciyaareedkii difaac dhaqameedka wuu isbedelayaa iyadoo gantaal kaliya uu awood u leeyahay inuu saameyn weyn ku yeesho goob muhiima waxa dhacay ma ahayn oo kaliya weerar balse waxa uu ahaa isbedel ku yimid xisaabta istaraatiijiga ah ee gobolka haddaba su'aashu waa ma sii kordhi doontaa doorka gantaalada ballistiga ah maalmaha soo socda mise waxaa jiri doona xeelado cusub oo lagu wajaho aragtidaada nagula wadaag qaybta faallooyinka ee commenteska hana iloobin inaad ku soo biirto kanaalkeena Tafaftir Media intaanu dib u kulmayno waa Abubakar Maxamed oo idin leh nabad iyo warsan